شرفت له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii saaxiibaday iga horeeyay xildhibaanada ahaa waxaan la qabaa iyo guud ahaan xildhibaanada golaha shacabka dareenka ku saabsan amniga guud ahaan golaha shacabka iyo xildhibaanada iyo guud ahaan dalkaba waa nasiib darre aad iyo aad u weyn saaka in kaadharkayagii la isugu dirayo WhatsApp-ka oo la leeyahay kaama soo deynaa way soo noqnoqotay ilaa maalintii halka kan laga soo noqday guddiyadu is doorteen iyo weliba intii kalfadhigii hore socday waxaa socotay dood ku saabsan xasaanadda sharafta iyo amniga xubnaha golaha shacabka iyo xildhibaanada guud ahaan dalka oo dhan halkii lagama qaadin maalin walba oo ka sii daraysaa awalba annagu ammaan darrada la wadaagnay shacabka kale ee Soomaaliyeed ayaa haddana waxa muuqata in annagii saaka aan halkaa marayno haddii annagu halkaa marayno waxaan dadka Soomaaliyeed ee kale aan matalo u doonayno maxay tahay sida xildhibaan Shariif uu sheegay waxaan rabnaa mudane guddoomiye halka kan hay'adaha amniga khuseeya dhammaantood in golaha la keeno oo golaha lagula xisaabtamo taas si xasilooni darrada ka jirta dhinaca ammaanka golaha xildhibaanada dalka loo maamulo iyo guud ahaan dalkaba qodobka labaad oo aan rabaa inaan ka hadlo waxa weeye golahan 275 xildhibaan baa fadhiya afartameeya wasiirra noqday afartameeya wasiirrada noqday waxay gabeen oo ka baxeen saaxaddii xorriyaddii ay shacabka ku mateli lahaayeen aniga wasiir baan soo ahaa waa aqaanaa xildhibaanku markuu wasiirka noqdo wasiirnimadiisu ku urura golaha inta soo hadhay baa shacabkii Soomaaliyeed la rabaa inay codkooda gaarsiiyaan saddex waxyaabood oo waddankan ka muuqda waxaan rabnaa in wax laga qabto waa marka koowaad mudane guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenno sida aad noo hogaaminaysaan kuma qanacsanin aad bay u hoosaysaa waa mas-uuliyaddii aanu inii igmadnay nooca ahayd waxay u eg tahay maalinba maalinta kasii dambaysa inaad hoos u dhigaysaan waana ta keentay saaka in sharaf dhaca inta la arkay leego uu nagu dhaco idinka ayaa la idinka arkay idinkaa ismaamulay baabuur isku wareejay ciidan isku wareejay aqaladiina camirtay dadkaad mas-uulka ka ahayd inay doortayna xilla iskama idin saarin sharaftoodina ma idin ilaalin mana idin xurmayn waxaan rabnaa inaan idinla xisaabtanno si rasmi idinla xisaabtanno ama si rasmi noo hogaamisaan ama shalay wada annaga aynu keenay aynu meesha kula dhaxano taa horta halkaasaan kaga tegaya qodobka labaad waxa weeye waxaan rabnaa qodobka 7aad ee dastuurku awoodda uuna siinayo inaan ku dhaqanno oo wax ku maamulno oo sharaftayada iyo karaamadayada iyo amnigayaga iyo noloshayada intaba aanu meel ku ognahay ay sugan tahay baanu doonaynaa hadda miisaaniyad baa ina hor taalla miisaaniyadda ina hor taalla sanadkii hore tegey iyo sanadkan labadaba guddoonkiina wax soo kororsaday intayada kalena waa tuurteen xildhibaanada ahaa waxa weeye cidaan wax ka weydiinayno male sharaftayada iyo noloshayada iyo amnigayaga cidaan wax ka weydiinayno male halkaan keenaynaa iyadana waan difaacanaynaa haddaan nagu garab gelaysaan nagu garab gala haddaan nagu garab gelayna iska kii celinayna waa mahadsantahay xildhibaan qodobka saddexaad waxa weeye dalkan annagaa madaxa annagaa shacabkuna soo doortay annagaa madaxweynaha dooranay ra'iisul wasaaraha annagaa dooranay wasiirada annagaa dooranay xasaanad siinay annagaa ugu sarreynaa
wixii aan loo doortay xil baa naga saaran waxaanu rabnaa inaanu la xisaabtan buuxa la gallo dawladda xukuumadda inaanu si buuxda ula xisaabtanaan doonayna oo kalfadhigan uu noqdo kalfadhi xisaabtan waxaanu idinka sugaynay inaad ajando noo keentaan oo intii kalfadhigu xidhnaa soo diyaarisaan oo sida maamul goboleedyadu u soo samaysaan oo halka kan aad nagaga ansixisaan ajandaha oo qodobaysanoo maalinba wax laga hadlayo xeerar baad la ordaysaan weliba xeerar dulaysan oo intooda badani dulaysan tahay baad la ordaysaan xeerarku waa qodob ka mid ah ajandaha hal qodob oo ka mida weeye xeerarku ajandaha ajandana waa idin soo samayn galow waa aadeen waxaad halkaasaa soo daba gasheen idinkoo faramaran baa nagu soo noqoteen waxa weeye marka waxaanu rabnaa ajande qodobaysan oo laga doodo oo maalinba la yidhahdo qodob hebel baa inoo yaalay oo sidii carruur bariis cunaysa midba midaan lagu dul furin baanu doonaynaa inaan meesha waddankan uu ku socdo golahan inuu golo shacab oo sharaf leh oo dadka metela oo aad nagu hogaamisaan uu noqdo ayaanu doonaynaa waa xisaabtamaynaa maalin walba wasiir baanu u yeedhaynaa ra-iisul wasaarahaan u yeedhaynaa madaxweynahaan u yeedhaynaa waxaa dalka laga qabtay muddadii hadda waxayd baan rabnaa inaan wax ka ogaagno heshiisyada la gelay baan rabnaa inaan ogaano waxaa Kenya ugu sogeysay qaab bay nagu soo daabashay fiisaha iyagii dadka la siin jirayna waa la gooyey waa laga qaaday meel caawa wax noo marayaan ma garanayno dalka inaan xisaabtanaan doonaynaa ama nagu hogaamiya ama ka soo dega meesha asalaamu calaykum